xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyagoona ka hadlay xaaladda dalka iyo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo xukuumadda isku bedeshay xilgaarsiin. Xildhibaanadani ayaa cadeeyay inuu dhamaaday waqtigii sharciga ahaa ee Maxamed Cabdullaahi Farmajo xukuumadana ay tahay xilgaarsiin, shaqadeeduna ay tahay shaqooyinka caadiga ah aan geli karin howlaha masiiriga sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada ku hadlayay magaca koowaad ee xildhibaanada ayaa sheegay in mudo kordhin loo sameyn karin madaxweynaha iyo xukuumadda midna mar haddii uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ku fashilmay isku keenida doorashada dalka iyo xaaladda amni ee Soomaaliya. Waxa sidoo kale ay sheegeen in xaalad halis ah ay ku jirto xarunta baarlamaanka ee ku shaqeeyo ee Villa Hargeysa kadib kulankii ugu dambeeyay la soo galiyay ciidamo dharcada u hubeysan, arrintaasina ay keeni karto inuu amniga xildhibaanada halis galo, xildhibaanka sana uu ku qasbanaado inuu isdifaaco. Talada dalka ayay sheegeen in xildhibaanada ay u taalo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aanay waxba aysan ku lahayn madaxweynaha iyo xukuumadda waqtigoodu dhamaaday, waxaana ay ku dhawaaqeen khudlad ay ugu magac dareen badbaado qaran. Si kastay ahaataba arrintan iyo kulamada isdaba joogga ah saacadihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli 8 Febraayo aan ka soo gudubnay waqti xiladkiisu uu ku ekaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo, waxaana guuxa siyaasadeed ay weli kasii taagan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa dhinac ka taagan, isla markaana waxay cadaadisyo xoogan ay saaraysaa saamilada siyaasadeed ee dalka. Dhahan midowga musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa waxa ay Farmaajo ay ku eedeeyeen in si abooda oo ku joogo xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ay ku tilmaameen inuu inqilaab uu ku joogo Villa Soomaaliya. Si kastay ahaataba tilaabooyinkan iyo shirarka isdaba joogga ah ayaa waxaa dabada ka riixaysa beesha caalamka oo mid waliba ay ku cadaadinayso in masiirka dalka loo turo, isla markaana shacabka Soomaaliyeed oo u baahan in ay helaan dowlad si loo gaaro hanaan doorasho. Doorashadan ayaa noqotay midii ugu jahawareerka badneed ee ka dhacda 20 sano ee lasoo dhaafay doorashooyinkii ka dhacayay Soomaaliya. Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa loo aqoonsaday inay yihiin caqabada ugu horeysa ee doorashadii dib u dhac ku yimid ee ka dhici lahayd Soomaaliya, taas oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo ay muddo badan ay isku haysteen. midowga musharaxiinta ayaa habeenkii xalay ahaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayagoona sheegay in madaxweyne Farmaajo uu waqtigii ka dhamaaday, isla markaana iminka wixii ka dambeeyay u yaqaanaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Maamulka Puntland oo horey war ugu soo saaray xaaladda dalka iyo mudxileedka madaxweyne Farmaajo oo dhamaaday waxay sheegeen in Farmaajo xilligan wixii ka dambeeya ay u aqoonsan yihiin for president of Somalia, taas oo micnaheedu tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Si kastay ahaataba xukuumadda Soomaaliya lafteedu saaka ay hadashay waxay sheegtay in midowga musharaxiinta ay hurinayaan colaad ka dhalata arrinta doorashada Soomaaliya. Si kastay ahaataba doorashada Soomaaliya oo la filayay xilligan in dalka uu yeesho madaxweyne cusub ayaanan weli muuqan. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa beri hortagi doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona la sheegay inuu ka codsan doono in mudo kordhin 2 sano loo sameeyo xukuumaddiisa si dalka doorasho ay u gaarsiiso, isla markaana wax ka bedel loogu sameeyo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee horey ay u magacowday xukuumaddiisa. Si kastay ahaataba dalkeena ayaa iminka waxa uu ku jira xaaladihii ugu dambeeyay. Dadka wax ka qora arrimaha Soomaaliya ayaa qaarkood waxay soo qoreen ilaahu Soomaaliya cidna uma maqna, ilaahu doorasho xor iyo xalaal ah, ilaahu soo sii. Ismaaciil Abukar Bulshada, Kasmaal TV, Muqdisho.